maxaad ka taqaanaa mid ka mid ah fariimihii ugu adkaa ee boqor loo diro taariikhda. Waxaa fariinta soo diray hogaamiyihii Mongolian-ka ama Tatarka ee la odhan jiray Hulagu, isagoo ka dalbanayay boqorkii Masar inuu isa soo dhiibo. waxaanay ahayd sida tan: ka socota boqorkii boqorada bariga galbeed, hogaamiyihii ugu weynaa dunida ee Hulagu, kuna socota Qudus. waxaan ku bilaabanayaa magaca Ilaahay, kaasoo goglay dhulka cirkana kor u qaaday. waxaan u sheegayaa boqorka Qudus, wasiiradiisa, shacabkiisa iyo waxa ku xeeranba inaanu nahay ciidanka uu Ilaahay dhulkiisa u soo diray. waxaana laga abuuray cadhadiisa, waxaana lagu sallidaa cidda uu cadhoodo. ee waa inaad waddamadii jaarkiina ahaa ku cibro qaadataan, go'aankaygana fulisaan, ku cibro qaata khayrkiin, isa soo dhiibana inta aanu daboolku idinka qaadmin oo aydan ka qomamaynin. waxaana maqashan inaannu adduunka qabsannay, raggii ugu waaweynaana laynay. idinkana dhulkaydin qarin karaa, hubkeesa naga kaaya difaaci karaa. ma jiro wax seefaayaga idinka qaban karaa, waayo seefaayagu waa danabyo, fardahayaguna waa dabayl, qulubteeduna waa sida buuraha, tiradeeduna waa tirada ciidda. dhufaysyaduna ma celiyaan, ciidamana naga kaa qaban maayaan, ducooyinkana laydinka aqbali maayo. qofkii dagaalkayaga doonaan wuu ka qoomameeyaa, qofkii nabad naga doonaana wuu nabad galaa. haddii aad shuruudahayga ka soo baxdaanna wax walba waydinala qaybsan, haddii aad diiddaanna waydin halaagsami. nafihiinana gacantiina ha ku haligina, waa in ninkuu digay kumuu dilin. boqorkii boqorada bari iyo galbeed, hogaamiyihii u weynaa Hulagu.